dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojisay gargaarkii bini'aadantinimo ay sii jirtay dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo ahaa mid loogu talagalay dadka tabaalaysan ee Soomaalida ah kadib markii la burburiyey bakhaar ay barnaamijka cuntada adduunka WFP ay ku lahaayeen dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkaas. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in sidoo kale la qaatay gargaar bini'aadantinimo oo dhan 76 tan oo ay ku eedeysay inay qaateen saraakiil sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintan ayaa daba socota kadib markii muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayeen bakhaarka hay'adda cuntada adduunka WFP oo la burburina ay ku socoto. Bayaankan oo ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tallaabadan lagu saleeyay siyaasadda Mareykanka ee ah inaan loo dulqaadan karin musuqmaasuqa, xatooyada iyo leexinta gargaarka bini'aadantinimo ee badbaadinaya nolosha bulshada. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxay carabka ku adkeysay in gargaarkan dib loo bilaabi doono kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay tallaabo cad ka qaado xadgudubka dhacay si adagna ay wala xisaabtanto ciddii sababteeda geysatay. Joojinta gargaarkani waxay saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo markii hore ay ka tiri jirtay wax badan maadaama lagu talagalay in iyaga lagu caawiyo. Arrintani waxay soo tarisay kadib markii hore ay u jireen dhacdooyin kuwan la mid ah oo lagu lunsaday waxtar iyo faa'iidooyin badan oo ay keenayeen hay'adaha kala duwan ee caalamiga kuwaasoo lagu talagalay dadka tabaalaysan ee Soomaalida ah. halkan markaas kala socota waa KTV aniga Cabdiraxmaan Xuseen ayaan idin taminayay.